السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلا أصحابي kanaalkan ogaal cusub. jasiirada lagu magacaabo waqooyiga Sentinel lama mid ah dhammaan jasiiradaha kale ee ka jira adduunka. waxayna dhul iyo hoy u tahay qabiil madax bannaan oo aan cidi maamulin. qabiil ka go'an oo aan xiriir la lahayn adduunka intiisa kale. iyo qabiil aad u halis badan oo lagu sheegay inay yihiin qabiilka ugu halista badan adduunka. sababtuna waxay tahay dadka deegaanka oo haya diidaya in si walba ay ahaato aanay ula xiriirin caalamka intiisa kale. sidaa darteed haddii aad leedahay marun tag jasiiradan waan kaaga digaya inaad tagtay inaad u dhawaato jasiiradan sababtoo ah haddii aad u dhawaato goobtan waxa ku haleeli kara leeb samaysan ama waran aanad garanayn meel uu kaaga yimi sida ku dhacday ninka lagu magacaabo John Shaw sanadkii 2018 wax kastoo aanad ka ogeyn ama aanad ka garanayn jasiiradan iyo qabiilkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa oo idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan ka hor intaan u gudagelin mowduucan hayloobin daawada inaad like saarto muuqaalka mahadsanid. haddaan ka soo eegno jasiiradan Sentinel ee dhanka khariirada waxay uga muuqataa halkaas sida uga muuqdaan jasiiradaha kale geedo tiro badan oo ku hareeraysan yahay xeel yar oo ciida oo ku dhex yaala biyaha buluuga ee badweynta Pacific-a waxay ku taalaa jasiiradani bariga khaliijka Bengal waxayna raacsan tahay maamul ahaan dalka Hindiya laakiin booqashadeedu waa arrin mustaxiil ah maan caqligal ahayn qofka booqday isiraahda tagna waxa kaliya uu la kulmayaa waa dil waxa lagu turjumaa kelmadda Sentinel ilaalo ama ilaaliya ama guard waa isku macne dhammaantood dhab ahaantiina macnaha si xaqiiqa ah uga jira jasiiradan oo waxay u diidaan dadka degan halkan in cid dibadda uga timaada ama ay soo booqato iyadoo sidaasna ku noqotay meesha ugu adag ee la booqdo iyo jasiirada ugu halista badan adduunka iyo sidoo kale qabiilka ugu dadka go'a badan waxay hoy u tahay jasiiradan qabiiladii inay cid dibadda uga timaado muddo taariikhyahanada qaar ku tilmaamaan 600 sano ha ahaato cid oo manaysa saaxiib ha ahaado cadow ama ha ahaado mid soo booqanaya iyadoo sidaasna ku noqotay qabiiladani qabiilka ugu daciifsan adduunka iyadoo ay suurtagal tahay inay ku dhacaan oo ay haleelaan xanuuno baabiyo oo masaxa dhammaantood kuwaasoo laga daaweyn kari lahaa haddii ay la xidhiir lahaayeen adduunka kale ma jiro ilaa hadda cid garanaysa luqadda ay ku hadlaan qabiilkani iyo dhaqamadooda iyo sidoo kale waxay diin ahaan aaminsan yihiin iyo sidoo kale aragtidooda ay ka aaminsan yihiin adduunka kaliyana waxaan ka ognay qabiilkan ayaa ah inay wareegaan oo ay marmaraan jasiiradan iyagoo jirkooda inta badan qaawan yahay waxayna ku nool yihiin cuntada badda iyagoo ka ugaadhsada halkaas diimanka iyo kalluunka iyagoo adeegsanaya hubkooda oo ah leebabka iyo warmaha halka dumarkoodana laga arkay iyagoo ka ururinaya halkaas midhaha ka baxa halkaas sida qumbaha iyo cinabka badanaana waxaa la arkaa iyagoo qabsanaya oo ku dadaalaya inay samaystaan xafladahaas oo laga arkay iyagoo ka samaysanaya xilliga badda dabcanna waxay ku can yihiin inay diidaan oo ay ka soo horjeesadaan cid walba oo soo booqata qofka uu doonaba ha ahaadee waxayna u adeegsadaan cid walba oo soo booqata leebabka sumaysan iyo warmaha sidoo kale ilaa hadda ma jirto cid garanaysa tirada dhabta ay yihiin qabiilkani sababtoo ma jirto cid awoodday inay tagto ay booqato ay soo tira koobto laakiin waxa lagu qiyaasaa tiradoodu inay u dhaxayso 15 qof ilaa 500 oo qof sida lagu qoray taariikhda xiriirkii ugu horeeyay la hubay la yeeshay jasiiradan waxa la sheegay inuu dhacay 100 sano ka hor waxaana sameeyay xiriirkaas niman ikhtishaafi jiray dhulka oo Chinese iyo Carab ahaa tusaale ahaan ninka muktashifka ah lagu magacaabo Marco Polo wuxuu qoray ragga qabiilkan inay yihiin ragga ugu bahalnimada iyo cunfiga badan iyadoo sidoo kale sanadkii 1963 ninkii badmareenka ah lagu magacaabi jiray Qaysar Faladrek uu ka digay in la maro goobtan isagoo yidhi haddii doontaadu wata istaagto jasiiradan adigoon garanayn ma jiri doonta cid saaran doonta oo noolaanaysa arrinka la yaabka lana wuxuu yahay in qabiiladan ay ka badbaadeen tsunami-gii xoogganaa ee dhacay sanadkii 2004 oo soo gaadhay jasiiradan ay degan yihiin qabiilkani tsunami-gaas oo sababsaday dhimashada wax ka badan 240,000 oo qof waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan hadda su'aala maxay tahay sababta ka dambaysan caybkan iyo colaadan aadka weyn ay qabaan qabiilkani mid ka mid ah aragtiyaha laga sheego ayaa waxay sheegaysaa in sababtu ay noqonayso sanadkii 1880 waqtigaas oo loo soo diray jasiiradan koox ka mid ah dadkii ikhtishaafi jiray dhulka kooxdaasina ay ku kaceen inay ka afduubtaan jasiiradan 2 qof oo daadoodu weyn tahay iyo 4 qof oo kale oo carruur ah si loo dhexgeliyo dadka kale oo wax loo soo baro dadkan laakiin sidoo kale waxaa la sheegay in kooxda wax ikhtishaafiisa ay geeyeen jasiiradan xanuunkaas oo sababay dhimashada dad aad u badan oo ka mid ah qabiilka muddo aad u kooban laakiin sidoo kale aragti kale waxay sheegaysaa in arrinka colaadda qabiilkan aanu xiriir la lahayn arrinkaas ee qabiilkan ay marka horeba ahaayeen ka hor dhacdadan qaar diiday in loo yimaado tusaale ahaan waxa ku burburtay doon ganacsi oo laga leeyahay dalka Hindiya meel u dhow jasiiradan 13 sano ka hor dhacdaas hore dhowr maalmood kadib burburkii doontana waxaa la sheegay inay kala kulmeen kabtanadii waday doontaasi weerar leebab iyo warmaaho ay ku soo qaadeen qabiilkani sidoo kale sanadkii 1981 waxa dhacay dhacdo oo agmidan iyadoo doontii lagu magacaabay Brim Rose ay duqaysay dhagax shacab ku wareegsan jasiiradan laakiin si wanaagooda kabtanadii waday doontaasi waxay siteen hub ay ka mid ahaayeen qoryo iyo baaskoolado taasoo ay ku awoodeen inay iska fogeeyaan oo iska eriyaan qabiiladan iyo weerarkooda hal usbuuc kadibna waxa lagu guuleystay in la badbaadiyo doontaasi iyo dadkii wadayba
waxaan lagu soo badbaadiyey dhammaantood diyaaradaha helikobtara. waxaa jira hal xidhiidh oo lagu guulaystay oo lala yeeshay qabiilkan. cidda boqotayna waxay ahayd gabadh aqoon-yahanada oo hindiyada oo lagu magacaabo Tranka North Bantek, taasoo ahayd mid kala socota oo ka ilaalinaysa dhaqdhaqaaqooda qabiilkan meel aad u fog muddo 2 sannadood ahayd. intaa kadibna waxay wadday inay ku guulaysatay inay u dhawaato oo ay siiso hadiyado, laakiin haddana isagoo jira halkaas xidhiidh lagu guulaystay. haddana weli qabiilkan way diidan yihiin dadka wayna ka soo horjeedaan dadka inay u yimaadaan jasiiradan. sanadkii 1994 waxay ku boobeen warmayo leebab diyaarad helikobtar ahayd oo isku daysay inay muuqaal ka duubto jasiiradan. sidoo kale sanadkii 2004 waxay diideen oo ay ka soo horjeesteen inay u soo dhawaadaan diyaaradihii helikobtarka ahayd ee u soo dirtay dowladda Hindiya si ay uga soo badbaadisay tsunami ka dhacay meesha. sidoo kale sanadkii 2006 waxay dileen 2 ugaadhsade oo si kama waana u qastiin u soo galay jasiiradda iyagoo ka ugaadhsanayay meesha kalluun. laakiin dhacdii ugu dambeysay ay geysteen qabiilkan waxay ahayd sanadkii 2018 2 sano ka hor hadda gaar ahaan bishii November. waqtigaas oo nin ka dhul Mareykanka lagu magacaabo John Shaw oo go'aansaday inuu tago jasiiradda si uu ugu soo qanciyo dadka ku nool halkaas inay qaataan diinta Kiristaanka. laakiin 2 maalmood kadib markii uu tagay halkaas wuxuu la kulmay mid kamid ah warmaha sumaysan oo ay ku soo ganeen qaar kamid ah qabiilkani. ninkan waqtigaas da'diisu waxay 27 sano, wuxuuna sii kaxaystay 5 ugaadhsato oo Hindiya si ay u geeyaan jasiiradan uu ku socday 24 bishii November. sidaas ayana dhacday oo ugaadhsatadii ninkan waxay geeyeen halkaas, laakiin markay u dhawaadeen meeshii dib ay uga soo laabteen iyagoo way diideen inay hore u raacaan. sababtaa waxay ogaayeen halista aadka weyn ee arrinku leeyahay. laakiin markan wuxuu go'aansaday John inuu kaligii baxo, wuxuuna kaxaystay laashar. sidoo kale wuxuu qaatay kitaab Bible oo aanay biyuhu googoyneen iyo sidoo kale hadiyada si uu ugu muujiyay inay niyadiisu wanaagsan tahay wuuna baxay. laakiin maalintii taariikhda 27 bishii November waxay ka arkeen ugaadhsatadii geysay ninkan meesha meel fog. ninkii John ay direen 2 maalmood ka hor oo lagu jiiday waran lagaga taagay qoorta. intaa kadibna waxay ku aaseen meedkiisii ciidda ku taala xeeliga. dhacdaas kadibna ciidankii waxay soo qabteen ugaadhsatadaas ka caawisay John inuu aado jasiiradan, waxayna ku soo eedeeyeen dembiga fudaydin dil iyo sidoo kale inay khilaafeen xeerarkii u yaalay qabiilkan iyo sidoo kale sharciga Hindiya oo sheegay inaan loo dhawaan karin jasiiradan. sidoo kale waxaa la furay kiis kale oo lagu soo qabqabanaya qabiilkan oo lagu marsiinaya ciqaabta ninka Mareykanka ay dileen. laakiin waqti yar kadib waa la xidhay kiiskaas sababtoo ah John abihi ayaa sheegay inuu cafiyay dadkaas dilay wiilkiisii. sababtaa wuxuu sheegay in wiilkiisu ogaa uu garanayay waxaan uu sameynaya halista ka iman kartaa inta ay leeg tahay iyo inuu ahaa mid og inay suurtagal tahay in lagu dilo halkaas. intaa kadibna ciidankii Hindiya ayaa u dhawaaday jasiiradan si ay uga soo qaadaan meydkii ninkii dhintay. laakiin ciidankii waxay ku kalsoomeen leebab iyo warmaanay garanay meel ay kaga imanayaan. sidaa darteedna way iska noqdeen ciidankii waxaana dib ugu laabteen wadadoodii. ilaa waqtigan ay joognana wuxuu yaalaa uu ku aasan yahay meydkii ninkaasi xilligaas badda. dabeecadahan iyo dhaqankan aadka u adag ay leeyihiin qabiiladani awgeed ma ka garanayno. sidoo kale cidana kama garanayso waxyaabo badan qabiilkan. sidoo kalena lagama hayo wax sawiro ama muuqaalo oo laga duubay gudaha jasiiradda. wax walba oo laga ogyahayna waxaan idinku dhex sheegay muuqaalkan dhexdiisa. sidoo kalena dhammaan sawirada laga qaaday qabiilkan waa qaar aan si fiican loo arkayn, sababtoo waa qaar laga sawiray meel fog oo ay sawireen diyaarado. sidoo kalena dowladda Hindiya ayaa iyaduna mamnuucday in loo dhawaado biyaha jasiiradan. sidaa darteedna waxaan oran karnaa wuxuu istaagay waqtigu jasiiradan dhexdeeda, waqti hore oo ka mid ah casriyeedii iyo waqtiyadii ay soo mareen dadku. intaas wuuna ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyo muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddaad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.